waxaan hadda faa'iido qabo farmaajo qabo oo ah inuu xisbigiisa si fiican u nidaamsado fahadna uu ka haro dadka Soomaaliyeed oo dhan way qabaan aktarkooda waxay qabaan farmaajo inay sax tahay inuu fahad ka haro bismillahir rahmaanir rahiim kulan wacan daawaday halkani waa nuxurka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida iyo caalamka qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah gaari uu leeyahay agaasimaha ciidanka BSF oo la rasaaseeyay iyo cidda saarneed yaa faa'iido ku qaba kala tagga Fahad Yaasiin iyo farmaajo Ra'iisul Wasaare Xamse oo ama baxay dalka dibadiisa ay arin uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaaday wadadii farmaajo qodobadaasi waxyaabaha kale ee uu soo gordha ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan haddaad nagu cusub tahay daawada nagu soo biir halkani waa nuxurka wararka ku bilowno gaari uu leeyahay agaasimaha ciidanka BSF General Maxamuud Cusmaan Diyaano ayaa lagu rasaaseeyay gudaha magaalada Boosaaso sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta General Maxamuud oo la hadlay telefishinka SBS ayaa sheegay in gaariga la rasaaseeyay uu ahaa Land Cruiser ama loo yaqaan Leila Calaawi xilli uu marayay magaalada xilliga la rasaaseeyay gaariga waxaa saarnaa qoyska agaasimaha uu sheegay in markaasi ay ka soo laabteen safar xagabax ah agaasimaha BSF ma faahfaahin khasaaraha iyo sida ay dhacdadu u dhacday wixii ka soo kordha dhacdadana waxaa idinkula wadaagi doonaa wararkeena dambe insha Allah dhacdadan ayaa imaanaysa xilli ee magaalada Boosaaso ka taagan tahay xiisad xooggan oo u dhaxeysa hoggaanka ciidanka BSF iyo xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani dhawaan ayay ahayd markii ay xiisadda BSF iyo maamulka ay horseetay inuu maalmo xirnaado garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso kadib markii ay BSF u digtay diyaaradaha adeegsada garoonka inkasta oo shaqadii garoonka ay sidii caadiga ahayd ku soo laabatay haddana waxaa magaalada Boosaaso ka taagan xiisad ka dhaxaysa hoggaanka ciidanka BSF iyo xukuumadda Siciid Cabdullaahi Dani dhanka kale haddaan eegnana Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u ambaxay safar dalka dibadiisa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta u ambaxay dalka Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay ugu qaybgalaya kala fadhiga 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay halku dhiga sanadkan ee kala fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa ku saabsan in aan cidna laga tagin oo si wada jir ah caalamku uu wada shaqeeyo horumarinta nabadda xaqiijinta horumar waara iyo ilaalinta sharafta bini'aadanimada jiilalka maanta iyo kuwa mustaqbalka Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ka hadli doona doorka muhiimka ah ee qaaradda Afrika ee dejinta ajendayaasha caalamiga ah iyadoo si gaar ah xooga loo saari doono ahmiyadda midnimada iyo kala duwanaanshaha oo aasaas u ah helitaanka nabadda iyo horumar waara sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa arrimo ku aadan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan guulaha waaweyn ee ku tiirsantay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha ammaanka iyo ciribtirka kooxda Al-Shabaab shirkani oo ah sanadle ayaa waxaa isugu taga madax kala duwan oo ka socota caalamka kuwaasi oo xarunta qaramada midoobay ee New York ka jeediya khudbad kala duwan Soomaaliya ayaa horay shirkan ugu qayb gashay waxaana fagaaraha qaramada midoobay tagay Ra'iisul Wasaareyaal hore iyo madaxweynayaal uu ku jiro midka hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa maanta ka hor inta uusan dhoofin ka qayb galay salaada janaasada ee lagu tukaday Allah u naxariistay marxuum Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Baardheere oo meydkiisa la keenay Muqdisho mudane Xamse ayaa marxuumka ku sifeeyay intii uu noolaa in uu ahaa daaci kaalin weyn ka qaatay nabadda iyo barashada diinteena suuban ee Islaamka isagoo intaasi ku daray in sheekha kamid ahaa culimada Soomaaliyeed ee ugu caansan gaar ahaan dariiqada Sheekh Cabdullaahi Baardheere oo laga yaqaano guud ahaan dalka
ra-iisul wasaaraha ayaa alle ugu baryay marxuumka jannadiisa firdowso inuu ka waraabiyo ehelkiisa, qaraabadiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedna samar iyo iimaan oo ka siiyo. dhanka kale haddaan eegnana taliyihii hore ee amniga gobolka Gedo Cali Xaashi oo aad ugu dhow kooxda Nabad iyo Nolol ayaa bixiyay xog xasaasi ah oo ku aadan kala tagga siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. Cali Xaashi oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Somali Cable ayaa sheegay in kala tagga Farmaajo iyo Fahad uusan ku ekeen labadooda oo kaliya, isla markaana ay jiraan saaxiibo aad ugu dhow Fahad oo la go'ay, kuwaas oo ka baxay xisbiga Nabad iyo Nolol. Farmaajo iyo Fahad waxay ahaayeen laba nin oo odayaal ah oo soo wada shaqeeyay, dib ha iska qabaane ama dheef, hadda waa kala tageen labadooda oo kaliya, xitaa ma kala go'ine oo Fahad waxaa la go'ay kooxdiisa isaga saaxiibada la ahaa, ayuu yiri Cali Xaashi. sidoo kale wuxuu sii raaciyay Nabad iyo Nolol weli waa taagan tahay, waxaa kaliya oo ka baxay Fahad Yaasiin waana sii shaqeynaysaa. taliyihii hore ee amniga gobolka Gedo Cali Xaashi oo sii hadlaya ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta ay ku kala tageen labada nin, wuxuuna ku macneeyay rabitaan fara badan oo ka yimid dhinaca Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kadibna uu ku qanci waayay Farmaajo. waxaa lagu kala tagay waa rabitaanka saa'idka ah ee Fahad. waxaa loo baahan yahay in refreshment fiican laga sameeyo xisbiga si loo helo inay mar labaad tartamaan, taasina waxaa ka hor timid rabitaan oo uu leeyahay Fahad, ayuu sii raaciyay. dhinaca kale wuxuu ka hadlay cidda faa'iido ku qabta kala tagga Farmaajo iyo Fahad, wuxuuna sheegay in ninka faa'iidada uu yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aniga waxaan aaminsanahay inuu faa'iido qabo Farmaajo, sababtoo ah madaxweynihii hore Soomaaliya oo akhyaar ah kuna fiican dowladnimada, waxaana faa'iido ugu jirtay inuu ka haro Fahad, ayuu mar kale wareysiga yiri Cali Xaashi, taliyihii hore ee nabad sugidda gobolka Gedo. warkii aad kala socoteen warbaahinta Nuxurka Wararka daawadayaal waa naga intaa. halkani waa Nuxurka Wararka. nabadgelyo.